noloshaada waxaad ka dhiliid karaysaa oo dagaal aan caadi ahayn ku qaadaa waxa la yiraahdo credit ama deymaha deynta waxa la yiraahdo habeen iyo maalin la dagaalan waanu ognahay shariicadeen iyo diinteenu halkay geysay deynta nabigu calayhi salaatu wasalaam aad iyo aad uga dayriyay oo uga digay xadiistu waxay ku soo aroortay inuu suubanuhu calayhi salaatu wasalaam dadka uu weydiin jiray marka loo keeno oran jiray war deyn ma lagu leeyahay haddii la yiraahdo deyn baa lagu leeyahay wuxuu oran jiray sallu calaa saaxibikum idinku ku tukada haddaanu ku tukan maayo haddii la yiraahdo deyn laguma lahana waa ku tukan jiray nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaynu ognahay shahiidka qofka la yiraahdo inaanu marka wax walba loo dhaafo sida xadiiska saxiixa ku sugan illa deyntu ma laga cafin culayska leedahay sheegis marka axaadiista ku soo aroortay deynta iyo culayska ay leedahay haddaynu maanta oo dhan sardino aad iyo aad bad ula yaabaysaa sidaa darteed bay tahay bahal halis badan waxa la yiraahdaa deyntu waxaan aad u jeclahay bartan walaalayaal inaan baraarujiyo Soomaalidu waxay yiraahdaan amaana kugu raagtay daabaad moodaa dadku badankooda suuqyada sida ka jirta qofku waxbuu meel ka deynsanaya ciddii lahayd ama ma soo weydiinaysa ama way ka mashquulaysaa kadib wuxuu moodayaa inuu leeyahay isagoo isa siinaya waxaad ogaataa 1 milyan qofka kugu leh iyo $1 qofka kugu leh waa isku mid ilaa aad ka xalaashanayso 1 milyan qofka kugu leh iyo $1 qofka kugu leh waa deyn uun labadubana aakhiradaadu bay halaagayaan labaduba bad baad ku galaysaa labaduba culays iyo dhib fara badan bay kugu keenayaan marka tadiyowga mesela ama meel $10 laga leeyahay ama $5 laga leeyahay ka xalaashada dadkeeda ku lahaa ama iska bixiya ama ka xalaashada bahasha noloshiina ka saara aakhirada markaynu sidaa u ogaanay adduunyadeena akhtaru shay'in yuhaddidu ala al-istiqrar al-mali waxa ugu khalisaysan ee qofka dhaqaalihiisu inuu sugnaado ama uu meel gaaro dhabarka ka jabiya waa deymaha waxa la yiraahdo waa credit-ka weeyaan sidaa darteed bay tahay marka koobaad inay mabda' ku noqoto dhaqan ku noqoto inaad ka fogaan karayso inaad ka fogaato haddii loo baahdo nabi maxamed baa uu qaatay calayhi salaatu wasalaam saxaabaduba way qaateen haddii loo baahdo laakiin waa inaad ku qaadato bicilmin wa bixadarin wa itqaan aqoon iyo digtooni iyo wax sugan ood garanayso waxaad qaadanaysaa muxuu yahay sidee buu yahay 3 tallaabo eeba deynta kula dhaqmi doonta tallaabada koobaad qallil ma istata'ta inta awoodi karayso yare الضرورة تقدر بقدرها شريعتنا waxa la inoo sheegay daruurada in xataa baqti hadad u baahateen cunto inaad yareynayso oo aad ka faa'iido qabsanayna yaro gaajada ka bixisa aad ka cunayso deynta haddaad u baahato lacag oo deyn ay kugu u baahato intaad uga baahan tahay mooyaane iska ilaali laakiin deymo urursato badsato